بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله waxaan bilaabaynaa casharkeeni baaka tracerka noo socda kan waxa weeye 6.4.1.3 oo siiska ah weeye baaka tracerka kan insha Allah waxaan isku xiri doonaa hal PC iyo hal router casharkan muhiimadda laga leeyahay waa 3 objects weeye in routerka la shido si fiican loo kacsho in la saxo meeshuu routerku marayo iyo in la save gareeyo waxyaalihii laga dhex sameeyo routerka markooda xarig baan ku xiraynaa hadduu la yiraahdo xarig baan ku xiraynaa consolka noo soo qaad PC-ga noo korkeen mujida console taabay dheheen waxaa la taabanaya R32 baa la taabanaya markii la joogo PC-ga raaruunka markii la tagana console baa la taabani waxaan ku helnay 16 points aan ku helnay mujida 80 markii la 16 points kadib maxaa ku xiga PC-ga nagee desktop tag terminal tag okay dheh marka okay tiraadid enter dheh enable en taabo enable en taabo enter dheh then waxaan sameynaynaa waxaan ku xijinaa aan sameynaynaa hadduu la yiraahdo waxay dhaheen b waxay dhaheen show run dheh show run then enter dheh okay interface serialka ku xiran waxaan gigabyteska wax IP address ku xiran uma jeedo wax IP address ku xiran uma jeedo show waxaan dhahayn haddana start up kan tegin haddana start up configuration tegina interestna dheh wuu naga diiday waxay dhaheen start up kan is not present okay routerkan tegaynaa routerka waa joognaa already because waxaan ka galnay PC-gan ka galnay global configuration nagee conf t configure terminal soo gaabinay waxaan dhahay conf t aan dhahnay then waxaan ku xijinaa hadduu la yiraahdo laymankaan ku xidhanaa waxaa lahayn markooda host magacaan bedelaynaa aan ku qorna r1 ka dhigaynaa routerka magac u bixinaynaa route 1 then waxaan u sameynaa line consolkii kuwii dhan sameynaa hadduu la yiraahdo saan ugu xirno waxyaalaha na weydiiyeen waxayna isticmaalay dhaheen ila socda step 2 aan maraynaa no step actually step 1 aan maraynaa consolka waxay dhaheen let me in ka dhig encryptorkana cisco oo asoo privilege jooga ana encryptor asoo ah encryptorna wax ka dhigta it says it is a secret ka dhig okay noge line console 0 raaci noo weynee si aad u aragtaan 0 raaci password cisco I mean no let me in a password laga dhigaya enter login dheh login okay halka exit haddaad waa sii raacin karnaa enable password dhahayna enable waan ka baxayna exit naga bixiba waxaan ku dhex jirnay line cancel ku dhex jirnay enable password cisco okay enable secret se aan taabanaya tab aan taabanaya secret it is aan ka dhigaynaa it is a secret
enter. Okay, intaas wada qabanay. Maxaan maraynaa 48 aan maraynaa halkaas. Kor u soconnaa. Okay. Hadda waxaan ka dhiganaa encryptor aan ka dhiganaa servers aan dhahaynaa SE aan qoraynaa taabo ku dhamaystirayaa password BA taabo ku dhamaystiraa encrypted saved password encrypted waxa password aan qornay dhow encryption ka dhigaya waxaan la akhrin karin buu ka dhigayaa okay v64 kor u kacnay okay waxay yiraahdeen let me in unauthorized access waxaan ku qoraynaa bannerkan ku qoraynaa message of the day waan ku qoraynaa hadduu la yiraahdo oo banner ah maxaan dhahaynaa halkaas dhahaynaa banner BA aan qoraynaa banner MOTD space unauthorized access is strictly xaaraan waa in la galo waxaa loo diidan yahay qof kasta digniin baa la siinayaa hadhowti qofkii gala ma garate qofkii hadhowti la gala sidii qofka hadhowti la gala loo qabsado oo mataqan loo suud gareeyo digniin baan siinaa hadhow la dhahaya qofkii digniin baan siinaa hadhowti la dhahaya okay enter dheh good intee maraynaa hadda 72 out of 80 waxaa noo harsan hadda muxuu yahay ma garan kartaa noo harsan waxaa noo harsan hadda waxa weeye inaan save garayno waxaan soo qabanay and dheh waxaan dhahaynaa copy run ka soo gaabinaynaa ama iyadoo dhamaystiran qoraynaa taabuu ku dhamaystirayaa start good enter laba goor enter taabanaysaa already nv ramka ku save garayno waxaan qabanay let's see it 80 out of 80 casharkeeni maanta intaasuu ku egyahay haddaan rabtaan inaan mataqaana aan mataqaana nii kormaro inaan waxyaala baaswordada aan gelinay inaan tijaabin haddaan rabtaan oo nii samayn karaa waxaan dhahaa inta exit baan leeyahay banaanku ii tuuray ujeedaan baaswordka horaan gelinayna haddaan inaan ku noqon rabno let me in aan dhahayna gudu isoo gashi waxaan joogaa privilegekan joogaa executive mode aan rabaa privilegean joogaa oo grade assignki ku hor qoran tahay r1ka routerka enable aan dhahay en aan qorayaa enter baan dhahay then waa inaan geliyaa password kala galaya aan gudaha usii galo passwordkan ma xasuustaan passwordkii hore aan tijaabino cisco wuu naga diiday cisco ma aha because cisco wuxuu ahaa unencrypted buu ahaa waxaan laga rabaa kii aan dhahayn enable secret aan dhahayn oo ahaa it's a secret ahaa it is a secret una ogolaa soo majeed config aan dhahaynaa terminal gudaha ugu jirnaa casharkeeni maanta waa intaas haddaa rabta inaad ogaataan xataa mid kale waa kan halkaas tag check dheh noo weynee taas waxaan qabanay 80 out of 80 routerkii waa ku xirnay bannerkii waan ku xirnay 8 points helnay everything waa sidii la rabaa u samaynay asalaamu calaykum